قصة طريفة أذو قيمة بدن جماعة من السلف الشيغان شعبي با كمدا أبو نعيم با في الحلية كل شيء وقصة حكمة أو لغلا بحايو هذا مرتوي هذا البا لغلا بحايا شعبي وحول وحال الشيغي شعبي ومن أمن التابعين وادقرن ريسان نينبا وحو ugaadhsaday qabsaday shimbirta la yiraahdo qumburowga qumburow ma taqaanaa oo qooleydu ku dir yahay laakiin uu ka yar yahay qooleyda dirkeeda laakiin uu ka yar qumburow baa la yiraahdaa shimbirtaasuu qabsaday nin markuu dhab siiyay yay la hadasho waxay tiri niyow hay dilin bay tiri haddaadan idilin saddex xikmo ku anfacdaan kuu sheegi bay tiri حلم حوضا لهذا وحيد أنا هذا الدشود عنته هلو يتشال هذا هلي بقبته حبك هقتر ما يجي قاعد هاي سنة هرتا كاها قبتر ما هي واحد يدي شاب هرتا بلاش أيضا سيداتها هذا أنا صدق حكمان كوشيغا هي نادي الدليل هضاد قو أنصت وهي هي بوري وحيد الحكمة كوبات مركز يسيد يسان كوشيغا حكمة الله بعضنا markaan geedka fuulaan ku sheegaya midda saddexaadna qowga dheer markaan dhakada kaga istaago yaa ku sheegaya culimadu hadal bay kula baxayaan waana xaqiiqo jirta marka bini aadamka la fiiriyo markaasuu sii daayay waxay tiri xikmada koowaad waxaa weeye laa talhafanna calaa maa faataka cafwan yaana khaldan waxay tiri intaadan isii daynin horta mid baan kuu sheegayaan wax la'aan aan kaa tegin mid baan kuu sheegay markaad isii daysana oon geedka fulana mid baan kuu sheegay markaan qowga fulana mid baan kuu sheegay ta koowaad waxaa weeye wax ku dhaafay bay tiri ha ka qoomamayn sidaaduba wax ku dhaafay shalaytiyo qoomay kugu reebin dhiig karna isu kugu ridin waa laga socdaa way ku martaytaa ha ka daba tegin waa gartay buur geedka markay fuush yaa wuxuu yidhi tiisaad labaad xigmaddii labaad ii ballan qaaday soo daa waxay tihi laa tusadiqanna maa laa yakuun annahu yakuun ha rumayn bay tidhi waxaan dhicin inuu dhici doono waxaan hadda aadan arag oon aadan hubin inuu dhici doono ha aamini kadib markay geedkii fuushay bay la hadasho waxay tidhi doqon baa tahay tidhi maxaa yeelay nin ayaan daroon nasiib xunna waa tahay tidhi haddaad i qabsan lahayd ood i gowrici lahayd meeshaa dhuuntayda ee gulgulada ama xawsalo la yidhaahdo waxaa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto 20 diinaar oo 20 mithqaal culays ku dhayaa 20 ku dar 40 diinaar oo dahab ah waa taqriiban 170 gram oo dahab ah 170 gram oo dahab gabdhaha lagu guursada hadda soo ma qaybna meer baa loo siiyaa qaybna guriga lagu dhistaa marka waxay tidna ayaan daran baa tahay oo nasiib xun intaad qabatay anoo meeshan dahab iiga buuxay iyo dollar yaad isii days aad buu ninku u shalaytoodo waa qoomay markaasuu ku yidhi waa yahay markuu ilmada iska tiray buu yidhi intaa gartay bal tii u dambaysay ii ballan qaaday shaydaan baa tahay tii u dambaysay bal sheeg xikmadii u dambaysay markaas waxay ku tiri seen xikmadii u dambaysay saddexaad ku ugu sheegi adoo labadii horeba halmaamay maxay horaan ku soo tiri wax ku dhaafay ha ka shalaytoon waxaadan hubinna hubaal ha ka dhigin labadaasoon kuu soo sheegay ood hilmaantay midda saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tiri doqon baaba tahay haddana waxay tidhi inaad doqon tahay waxaa ku tusaysay tidhi aniga qumburow baa la yidhaahdaa waxay tihi baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo luddiga dhacaan waxaan leedahay laysku daro culayskaygu 20 mithqaal ma gaadhay tiri waad ogtahay waxaanan kuu sheegay meeshaan inay ku jirto 40 mithqaal seed horta u rumaysay tir dabaalnimadkaada seed u rumaysay ayada dhan baan dhannayn waa waxaan 50 gram ka badnayn oo waad aragtay intay leegta waxay tiri laf iyo lud iyo tim iyo baalka wax dhaafay la isku daro ma dhanni wixii aan kuu sheegay nuski xataa ma dhanni waana rumaysay adiga oo hayay ilmada duuga hayay lacag bay dhaaftay dollar bay dhaafay caku farta qaniisanta
marka waxay culimadu mithaalka u keenaan waa mithaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo iimaan samidu balaayo badan bay kaa badbaadaysaa hunguri la'aantu ama iimaan la'aantuna waxay kugu ridaa balaayo ku dhex fadhis caqiida darrana way kugu abuuraysaa inaad been xataa rumayso been aad rumayso 40 mithqaal oo dahaba xagee laga shimbirta wada garta xagee tahay midda kale qoolleydu meesha xawaa kuma qaadaba midda waaweyn qayb laakiin qumbirogu baahal yaroo halkan ka gaaban way qoolleyda nuskeeda maba qaadi kara waxaas oo dhan wuuna aaminay muhiimadu marka waxaa weeye degdega adduunka iyo xooladoonku iyo biilraadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu Soomaaliya iyo sidinku ridin meela daran sayidka qoli u durxulayaan qaraabana markaas wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridaa hogobyo shaytaan reehebelki sheegi maaye wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridahayaa hogobyo shaytaan hungurigu wuxuu ka tuuri dakhal sheeb qawiyu ka tuuri laago bad qoliyo Soomaalida arintay dhandhan ban baaradayna iyo miir kuli baaradinayna waagi dambe iyagoo waa naloo keeno quraan aan saaray Soomaalida arag waxaan waa aad in looga fiirsado u baahan yahay